طبعا kormeero kala duwan ah ku sameeyay wadooyinka markaas ama dhismaha ay ka socdaan laamiyada ee magaalada Beledweyne waxa uu tagay bariga laamiga iyadoo isla markaana uu dabcan ula hadlay shaqaalaha iyo sidoo kale injineerada halkaas ka shaqeeya iyadoo isla markaana wasiirka iyo sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Maxamed Carab Maayarka magaalada Beledweyne ugu dardaarmeen inay si xoojiyaan oo markaas howlahooda shaqo sidoo kalena ay dhisaan wadooyinka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyaga gacanta ku hayaan halkan aad kala hadlay waa galbeedka magaalada Beledweyne uu ka socdo dhismaha laamiga iyadoo halkan si habsami leh oo kaga socdo halkan waxa halkan ku sugan maayarka magaalada Beledweyne gudoomiyaha gobolka sidoo kale wasiirka iyo saraakiil ciidan qaybaha kala duwan markaas dabcan shaqaalaha ka shaqeynaya dhismaha laamiga mas'uuliyiinta waxa ay u sheegeen ama sidoo kale waxa ay ugu dardaarmeen in markaas la sii xoojiyo dhismaha laamiga sidoo kalena markaas la sii wado maadaama guud ahaanba magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ay ka socoto dhismaha laamiga waa kan wasiirka sidoo kale gudoomiyaha maayarka oo la hadlay warbaahinta Shabeelle u nimaanay inaan sameeyno site supervision shaqooyinka socdo ee dhismaha wadooyinka inaan kormeerno aan monitoring ku sameeyno sida ogsoontihiin bishii hadda la soo dhaafay mashaariic waaweyn ee magaalada Jowhar laga daafuray oo construction ah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha state-ka noo daafureen haddana waxaan inta u imaanay inaan dardar gelino kuwa ka socda magaalada Beledweyne si ay kuwa ugu daba tagaan bilooyinka soo socdana saasoo kale loo daafuro wadooyinkan magaalada Beledweyne ka socdo waa 3 wado 3 company oo istaahil ugu horeyso Bruj iyo adeegsan saddexdaas contract ya gacanta ku haayo waana waxa la yiraahdaa min 3 kilomitir iyo sintiyo company kasta uu dhisaayo marka waxaan rabnaa marka in shaqada meesha ay marayso heerka ay joogto quality-geeda iyo tayadeeda iyo socodsiinteedaba waxa anaga kaalinka aan ku leenahay inaan ka qaadano waxaad ogtihiin waxaana la socdaa injineer ka socda PCU-da oo ugu horeeya injineer Cabdicasiis sidoo kale nin odayo weyn oo la yiraahdo Xaaji Maxamed Nuur Cadaan noo fadhiyo meesha la yiraahdo Muqdisho oo asagana howlahan waxa la yiraahdaa kaalin kale weyn oo xajmi leh ku leh saa ogtihiin bishan dhexdeeda waxaan soo dajinay qaybtaas janta wadada ka bilaabanaysa oo 22 kilomitir ah oo tagaysa kala beer waa dhigsantahay hal bilan waxay siisnaanaysaa kadibna shaqadeedu waa bilaabanay shaqooyinka meeshan ka socdo ma ahan kuwa yar waxa kale oo noo socda haddana wadada isku xirta ilaa iyo xuduudda preparation-keedii iyo maxaa la yiraahdaa design-keedii iyo shaqadeeda assessment-keedii ya hadda noo socoto gacanta ku haynaa oo injineer ajaanib iyo Soomaali oo wasaaradda ay hogaaminayso shaqadooda ay hayaan marka shaqooyinkaas socdo dhan waxay u socdaan dadka deegaankan waxa mas'uuliyadeeda iyo socodsiinteeda iyo maxaa la yiraahdaa daadihinteedana mas'uuliyad ka saaran tahay dawladda imaanay daafurkii doorashadii qof iyo codkeed inaan soo aadno site-kan soona fiirino howlihii shaqo oo ka socday wadooyinkan xaqiiqadii wadooyinkan sidii maayaradu ay ka dhawaajisay in muddo ah ayaa hadalheynteedii u socotay haddii aan lahayd bilowgii wadashigii iyo qiimeyntii iyo shaqooyinkii maantana aan marayno meel xaqiiqdii bilow aad u fiican oo gabagabo ku dhow maad celinayna cid allaale ciddii qayb ka noqotay oo ciddii mashaariicda bixisay sidoo kale kambanigan dhisaayo xaqiiqdii wadadan hadda aan taagnaano oo istaahil waxaan leenahay reer Beledweyne waxay filayaan wadooyin ka duwan wadooyinkii hore waan rajaynaynaa insha Allah shaqadan dhibka laga maray iyo waxaan ka warhaynaa iyo xaaladaha ay taagan tahay waxaan rajaynaynaa in wadooyin aad u qurux badan ay maan doonaan magaalada 3 wado bisa kuma filno laakiin bilow fiican waaye 3 wado hadii dhisanto waxaan rajaynaynaa insha Allah dadkii mashaariicda bixiyo oo banka adduunka ugu horeeyana inuu ku qanci doono wadooyin ka badan iyo mashaariic ka badan magaaladan ay imaan doonto waan rajaynaynaa insha Allah in wadooyinkaas wax badan ay fududeey doonto hadii aan lahayd socodkii hadii aan lahayd ganacsiga hadii aan lahayd dhaqaalihii bulshadan insha Allah wax badan ay u tari doonaan Wallaahi ta'ala barakaatu maanta waxa farxad noo ah inaan taaganahay كباني يستاهل جد كإدريسي وحقيقة جد أد واسعة وأنا سلاي هاي حكي جد سنة هاي جدد كهرة وقت أدق لجليي قلب أدق لجليي أد لجوار هايو وحلاي هاي هذا أمر سنتا كباني يستاهل إيو تيم كشقين هايو sidoo injineer cali u sheegayna
waxaan isleeyahay maaha wax fudud in laami hore laga saaro waqti adag iyo maaragtay waa meel mar kastaba dhagaxii iyo ciiddii jidka la dhigayo iyadoo laab la soo marsiinin aan la keenin saytka jidka intaan la eg oo mar kastaba wixii la keenayo testi la soo marsiinayo waqtiga ay qaadanayso waa dareemi kartiin ma aha hal qof oo inta dhiig laga qaado isla markaas jawaab laga bixinayo wadooyinka laga dhisaayo magaalada Beledweyne oo hadda aan joogno wadada ka soo bilaabanaysa geerishka barandhada oo soo gaaraysa Janta Kuundisho oo dhisaya kambaniga Istaahil waxaan aragnay wixii magaaladan hore looga dhisi jiray wax ka duwan oo muxuu ahay tayadeedii iyo muxuu ahay quality aad u sareyso waxaan leenahay kambaniga Istaahil waa maasantiin shaqadaad haysaan waa shaqo aad ummadda reer Hiiraan gaar ahaan reer Beledweyne aysan idinku ilaabi doonin oo taariikhi ah sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa injineerada oo ayagana waqtiga gelinayo iyo shaqaalahoodii wasaaradda howlaha guud oo maanta nala joogo wasiirkeedii howlaha guud ee dawladda Hirshabeelle oo ayagana muxuu ay dadaal dheeri ah barnaamijkan u soo galay dhammaan waa maasantiin dardaaranka wuxuu yahay kaliya magaaladan sidaad ogtihiin waa magaalo iska biyo baxa ah in la adkeeyo wixii sida aad adkeynaysaan aad si laba jibaartaan oo aysan muxuu ahay laamigii aysan naga burburin oo konta sano gudoomiyaha konton oo sheegay ana 100 sano leeyahay 100 sano inay dhismataa rabnaa marka maanta farxada ii tahay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xildhibaanada dawladda Hirshabeelle inaan taaganahay buurtii Janta Kuundisho oo aan leeyahay muxuu ahay shaqadii aan soo kormeernay si fiican ku socoto waa farxad iyo gaar ah shaqaalaha markuu waxaan maleynaa oo ka shaqeeya laamigan soo diiwaan galiyana shaqaalaha jimcaha soo diiwaan galiyana ha u diyaar garoobana doorasho qof iyo codda haddii xaaji Muuse aniga saaxiibkii waa gacmi Cabdulla Mudaan aqaan nin wanaagsan oo wadankan soo shaqeey waaye injineer si oo howlaha ay sii socdaan iyo howlo kale imaadeen shaqaalaha jimcaha noo soo dir waxa leedahay qof iyo cod waa qasab waa kaas kaarkiin qaadta ballanteena waa doorasho qof iyo cod iyo horumar iyo Beledweyne oo noqoto Washington noqoto guuleysta insha Allah horta aad ugu mahadcelinaynaa kambaniga Istaahil wax badan oo qabtay runtii gobolkan uu ka qabtay hadda kadibna uu ka qaban doonaa saan rajeynayno martida iyo wasiirka inuu soo dhaweynaynaa injineerada iyo wasiirka dibadhiska iyo howlaha guud saaxiibkay waa soo dhaweynaynaa sharaf inoo tahay maanta inaan inta ma wada nimaado dadka reer Hiiraan waxaan leenahay mashaariicda la soo dhaweeyo in la soo dhaweeyo danta ku jirta sababtu waxay tahay wiilkiisa isticmaali doono dana noogu jirto dadka xogaha mararka qaar waa la libaa kambaniyada dhibay la kulmaan laakiin wixii hadda ka dambeeyay waxaan rajaynayaa in dib la kulmi doonin way dul qaataan runtii kambaniga waxaan aad ugu siifaanina oonan waa kambaniga noogu dhib yar dacwadiisa ma bal soo gaarta dacwadiisa waa kaaga mahadcelinaynaa shaqada aad ummadaad u hayso waxaan kaloo rabnaa Liibaan Soobane Daawud idaacadda TV-ga Shabeelle Beledweyne